dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrinta go'aanka gaarista afayeenkii hore ee xarakada Al-Shabaab Mukhtaar Robow ay qaadan karto muddo dheer kadib markii shalay galinkii dambe magaalada Muqdisho laga soo dejiyay Mukhtaar Robow kaasi oo dowladda Soomaaliya isu soo dhiibay. Haddaba waa kuma Robow. Mukhtaar Robow Cali oo loo yaqaan Abu Mansuur waxa uu ku dhashay degmada Bardaale ee gobolka Baay sanadkii 1960kii. wuxuu xubin firfircoon ka ahaa dadkii aasaasay Al-Shabaab waxaana 2008 markii la dilay Aadan Cayrow loo magacaabay afayeenka Al-Shabaab. June 2017 sanadkan ayaa Mareykanku ka dulqaaday lacag madaxiisa saarnayd isagoo ku jiray liiska argagixisada. Ugu dambeyntiina waxa uu go'aansaday in dowladda Soomaaliya isku soo dhiibo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaalkiisa waxaa noo haya wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad. Mukhtaar Robow Cali oo Abu Mansuur loo yaqaano waxa uu iminka ku sugan yahay xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka dowladda federaalka ah ee ilaa shalay ilaa maanta waxa soconayay wada hadallo iyo shirar ay ku jireen mas'uuliyiinta federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaa laga arinsanayaa aayaha iyo mustaqbalka Robow iyo waxa ay tahay in ay dowladda Soomaaliya ka samayso. caadiyan marka ay sidaan oo kala timaado dowladdu waxa ay martaa laba hab midkood kan hore waxa uu ahaa in mas-uulka ama horjoogaha ka tirsan Al-Shabaab uu warbaahinta soo hor istaago isla markaana uu sheego inuu isaga baxay fikirkii Al-Shabaab. habkaas waxaa maray Sheekh Atam oo dalka dibadiisa ay dowladdu u dirtay, sidoo kale waxaa maray Zakariye oo iminka la shaqeeya dowladda Soomaaliya. habka kale waxa uu yahay kan uu maray saaxiibkii Xasan Daahir oo xaalad u dhow xaaladda Robow kula soo biiray ama isugu soo dhiibay dowladda Soomaaliya markii uu soo gaaray Muqdishona diiday in uu ka tanaasulo fikirkii Al-Shabaabnimada ahaa. Robow waxaa la filayaa in labadaa wado midkood uu mari doono. dhanka kale mas-uuliyiin aanu la hadalnay oo dowladda federaalka ah ka tirsan waxay noo xaqiijiyeen in laga yaabo in xaalka Robow uu adkaado isla markaana waqtiga la filayo waqti ka badan uu qaato. balse waxa ay noo xaqiijiyeen in dowladda Soomaaliya ay tahay cidda kama dambeystii ay tahay in ay go'aan ka gaarto. Cali Nuur Salaad wariyaha BBC ee Muqdisho. Haddaba maxay tahay muhiimadda uu leeyahay dowladda Soomaaliya Mukhtaar Robow Abu Mansuur inuu isu soo dhiibo? Cabdiraxmaan Saalax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa nooga warramaya. waxa weeyaan Mukhtaar Robow wuxuu ka mid ahaa aasaasayaasha ugu muhiimsan xarakada Al-Shabaab. wuxuu ka soo qabtay jagooyin muhiim ah sida inuu noqdo afayeenka xarakada Al-Shabaab, ku-xigeenka xarakada Al-Shabaab. horta waqti wuxuu ku soo aaday la soo weeraray, dagaal baa ayuu ku jiray, way u gurmadeen, kadibna waa la soo qaaday, xamar baa la keenay. arrintaas marka qaabka loola dhaqmayo maybe waa iska cadahay baa waxaad moodaa in maadaama uu horta raggii ay saaxiibada ahayn horta uu la dagaalamay, xabad bay iska waraabiyeen, kadib waa loo gurmaday, kadib Muqdisho la keenay oo diyaarad bay dowladdu ku keentay. rag uu la dagaalamay hadda ka hor ayaa keentay. waxaa marka aan ka dareemayaa inuu isbedel inuu jiro oo Robow isbedel inuu ku dhacay xagga fikirkiisa, xagga ma garanaysaa systemka iyo qaabka uu doonayay. waxaa xusin badan Mukhtaar Robow markii aad qiimeyso doodihiisa iyo hadaladiisa marka dib ugu noqoto wuxuu rabay in la helo dowlad Soomaaliyeed oo aan ka fogeyn sida maxaakiimta oo kale. ma rabin dowlad oo ku xiran caalam meel kale ku xiran looga taliyo. fikir Soomaalinimo ayuu rabay. arrintaa marka waxa weeyaan waa arrin oo ka soo horjeeday xarakada Al-Shabaab. arrintaa waxay bilaabatay si fiican u bilaabatay 2011 oo ay soo baxday khilaafka u dhaxeeya asaga iyo saaxiibada u dhaxeeya, taas oo keentay in la kahmishiyo oo saaxada laga saaro oo jagooyinkii laga qaado, kadibna ay keentay marka inuu doorto inuu ku noolaado qarida tuulada maanta lagu dagaalamay.